السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan asxaabay meel kastood nagala socotaan ku soo dhawaada barnaamijkeena habeenimo talaada Arbaca ay soo galayso taariikhduna waxa ay ku beegan tahay 4 bisha Agoosto sanadka 2026. haddaba caawa barnaamijku waxaynu ku soo qaadanaynaa wararkii ugu waaweynaa ee ka soo kordhay xaaladda gobolka Bariga Dhexe intaynu kala maqnayn maxaa soo kordhay. haddaba qodobada barnaamijkaanu ku soo qaadanayno waxaa ka mid noqon doona xafiiska aayatullaahiga Iiraan oo goordhow soo saaray war weyn, Israa'iil oo heegan buuxa gelisay ciidankeeda badda iyadoo ka baqaysa Iiraan. sababtu maxay tahay? wararkii ugu dambeeyay arrimaha waan idiin soo gudbin doonaa. wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan oo sheegtay wadahadaladii u socday Cumaan iyo Iiraan inay meel wanaagsan marayaan ee ku saabsan marinbiyoodka Hormuz. hub loo malaynayo inuu u socday Xisbullah oo la sheegay ciidamada Lubnaan inay qabteen. hubkaasi halkuu ka yimid, sideese uu ahaa, ama hub noocee ayuu ahaa? dhammaan warbixinadaas ayaynu caawa barnaamijka ku faahfaahinaynaa. inta aan ku jirnana wixii soo dhaca warar waan idinla socodsiin doonaa. kulanti wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena habeenimo. haddaba waa habeenimo talaada Arbaca ay soo galayso taariikhduna waa 4 bisha 8 2026. haddaba caawa barnaamijka waxaynu ku soo qaadanaynaa wararkii ugu waaweynaa ee soo kordhay intaynu kala maqnayn. ugu horreyn waxaynu ku bilaabaynaa war weyn oo la sheegay inuu ka soo baxay xafiiska aayatullaahiga Iiraan. haddaba aan idin tuso warkan iyo waxa laga qoray. telefishinka Ruushku leeyahay ee la yiraahdo RT ayaa wuxuu leeyahay xafiiska Mujtaba Khamenei waa aayatullaahiga Iiraan ayaa wuxuu ka jawaabay eedeymo iyo dacaayado la isla dhexmarayay oo ku saabsanaa iscasilaadda madaxweynaha Iiraan Mas'uud Pezeshkian iyo mowqifka arrinka uu ka taagan yahay aayatullaahiga waddanka Iiraan. haddaba warbixinta way sii socotay. waxaa leeyahay xafiiska xiriirka dadweynaha ee hogaamiyaha sare ee Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan Mujtaba Khamenei ayaa beeniyey isagoo oo aan magaciisa si toosa u xusin hadal loo nisbeeyey Mohammed Bakhir Kharazi oo ku saabsanaa arrinta iscasilaadda madaxweynaha dalka Iiraan. haddaba bayaankan ayaa wuxuu si toosa uga soo baxay xafiiska xiriirka dadweynaha ee aayatullaahiga Iiraan. maamulaha haddaba waxaa la sheegay maalmihii u dambeeyey qaar ka mid ah hadallo loo nisbeeyey hogaamiyaha sare ee kacaanka islaamiga ayaa lagu faafiyey baraha internetka, kuwaasoo nasiib darro lagu sheegay saldhig u noqonaya jahawareerinta ra'yiga dadweynaha iyo abuuridda kala qaybsanaan gudaha dalka Iiraan in laga shaqaynayo. haddaba sida lagu sheegay bayaanka ka soo baxay aayatullaahiga xafiiskiisa, qoraalka lagu daabacay internetka ee uu qof ku sheeganayo jawaabta hogaamiyaha kacaanka islaamiga ee ku aadan warqadda madaxweynaha sharafta leh gebi ahaanba waa been oo waxba kama jiraan. bayaanku wuxuu carabka ku adkeeyey in isha rasmiga ah ee lagu daabaco fariimaha wararka iyo qoraalada la xiriira hogaamiyaha Jamhuuriyadda Islaamiga ay yihiin madasha warfaafinta xafiiska hogaamiyaha kacaanka. haddaba hadallada dhowaan ka soo baxay Mohammed Bakhir Kharazi oo ah wadaad xiriir dhow la leh qoyska hogaamiyaha Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan ee ku saabsan Mas'uud Pezeshkian madaxweynaha Iiraan ayaa si weyn loogu baahiyey warbaahinta Iiraan iyo baraha bulshada. ninkan la yiraahdo Kharazi ayaa sheegay in Mujtaba Khamenei oo ah hogaamiyaha Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan uu qoray haddii Pezeshkian mar kale iscasilo waan aqbalaynaa iscasilaadiisa. marka meesha waxaa laga abuurayaa oo la buunbuuninayaa war uu leeyahay xafiiska Mujtaba annagu ma qorin warkaas. hogaamiyihii inuu iscasilay hadda ka hor oo maaragtay waa madaxweynaha la joojiyey, haddana hadduu iscasilo hogaamiyaha uu leeyahay waa aqbalaynaa. marka meesha waxaa la abuurayaa
tashwiish ku saabsan in madaxweynaha iiraan iyo aayatullaahiga iyo madaxda iiraan uu khilaaf uu ka dhex jiro macnaha noocaas ayaa la abuurayaa marka xafiiska wuxuu beeninayaa arrinka ku saabsan warkaas wuxuu leeyahay wax ka jira warkaasi ma jiraan waaye qodobka marka halkaas kaga gudbaynaa sheeko kale ayaa iyaduna soo baxday nimankii israa'iiliyiinta waxaa leeyahay ciidankooda badda dhoolatusay badda ka samaynayaan iyagoo u diyaargaroobaya dhoolatuskaas u samaynaya sidii ay iskaga caabin lahaayeen iiraan marka ay badda soo weerarto badda maxaa ku yaala meeshii biyihii laga samaynayay maaragtay gaaska laga soo saarayay israa'iil gaaska badda meeshay ka soo saaraysay tamarta meesha laga dhalanaya wixii oo dhan badda waaye iiraan marka waxay tiri haddii maraykanka uu isku dayo inuu annaga kaabayaasheena dhaqaalaha burburiyo weerar weyn nagu soo qaado israa'iil meelaha aan annaguna nagta ka saari doonno waa meesha gaaska ay ka soo saarto wana isha keliya ee israa'iil ay dibadda u dhoofiso gaaskaas waaye gaaska marka hadda saan u difaacan lahayn gaaska ayaan dhoolatus samaynaynaa ay leeyihiin ciidanka badda waxaana ku jirnaa istinfaar wax la yidhaahdo annaga heeganaa ku jirnaa mar walba iiraan wayna soo weerari kartaa marka iiraan aan ka baqaynaa inay kaabayaasheenna iyo ilaha dhaqaalaha aan haysano ay naga burburisay leeyihiin haddaba mar kale aan tuso telefishinka ruushka ayaa wuxuu leeyahay markii iiraan ay hanjabtay kadib israa'iil waxay gashay heegan dhanka badda ah haddaba warbixin lagu daabacay qaar ka mid a warbaahinta israa'iil ayaa waxay sheegayaan hanjabaadihii ka yimid iiraan dhowaantan oo ahaa inay haddii weerar weyn lagu soo qaado iyaduna ay bartilmaamaysan doonto istaraatiijiyadda goobaha halbowlayaasha dhaqaalaha gobolka haddaba meelaha ay tilmaantay iiraan inay weerari doonto oo ay iclaamisay waxaa ka mid ah goobaha tamarta laga dhaliyo israa'iil iyo meesha korontada warshadaha biyaha soo saara sidoo kale gaaska meesha laga soo saaray ee badda mediterraneanka la yidhaahdo oo israa'iil ay halkaa gaaska ka soo saarto hadda marka waxaa leeyahay ciidamada badda israa'iil waxay bilaabeen inay halkaa dhoolotusyo ka sameeyaan waaye marka sheekada iyaduna halkaasay maraysaa warka kale wasaaradda arrimaha dibadda iiraan ayaa goordhow war soo saartay maalmahan waxay wada hadallo u socdeen cumaan iyo iiraan waa labada wadan ee hurmus iyagu dariska la ah marka waxay leeyihiin iiraaniyiintu hadda wadaxaajoodkii noo socday meel fiicanuu noo marayaa heshiis inaan gaarno mar dhow waxa dhan aan ku heshiino sidii loo mari lahaa meesha ayaanu ku heshiinay haddaba markaan idintusoo warka ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan ayaa soo saartay war caawa waxay leedahay wadahadalladii noo dhexeeyay annaga iyo saldanadda cumaan waa wadahadallo meel wanaagsan maraya afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan ayaa la hadlay saxaafadda wuxuuna sheegay iyaga iyo saldanadda cumaan inay aad uga wada hadleen habka amniga ay u marayaan maraakiibta dhanka hurmus haddaba wadahadalladii noo socday annaga iyo cumaan waxaa diiradda lagu saarayay arrinta maraakiibta galaysa iyo kuwa ka baxaya dhanka hurmus iyo sidii amnigooda loo damaanad qaadi lahaa dhanka kale saldanadda cumaan iyo wuxuu sheegay iyo iiraan inay yihiin labada dowladood ee iyagu markaa mas-uulka ka ah marinbiyoodka hurmus amerikaan iyo qabqab iyo wax ka gala malaha le meeshaa annaga waaye dadka meeshan go-aankeeda gaari kara dadkan kale oo dhan waa iska hadlayaan wax ka jira marka malaha le warkaas marka iiraan waxay leedahay meel fiican anaga iyo cumaan isla marsiinaynaa waanu ku heshiinaynaa hawshaas heshiiskaasna mar dhow ayaan shaacinaynaa ay leeyihin waaya qodobka halkaas kaga gudbaynaa qodobka ugu dambeeya barnaamijka caawa waxaanu kusoo qaadanaynaa gantaalo halis ah ayay yidhaahdeen ciidanka lubnaan waa qabanay gantaalahaas marka waxay yidhahdeen waxay ka yimaadeen suuriya waxayna u socdeen sida wararka qaar ay sheegayaan xisbullah suuriya ka yimaadeen xisbullah u socdeen gantaalahan marka waa gantaalaha la yidhahdo garaada la yidhahdaa
waxaa la aaminsan yahay inay yihiin suuriya in laga soo gaday oo dowladdii hore oo bishaar al asad hubkii ay ka tagtay gantaalahan garaadka waa kuwii hore qadiimka waaye inay kuwa ay halkaa xisbullahi iyo ka soo gateen oo la soo gelinayay gudaha lubnaan oo xisbullah sidaas loogu geynayay oo xisbullah ay markaa dagaalka israa'iil u isticmaali doonto ayaa qorsho ah marka hadda ciidanka lubnaan waxay leeyihiin hubkaas waa qabanay marka hubkan iyo nooca uu yahay iyo wixii laga qoray telefishinka alcarabiya ayaa goordhow qoray ciidanka lubnaan waxay sheegeen maanta talaado ah inay fashiliyeen iskuday hub lagu tahriibinayay kaasoo ahaa sawaariiq kuwaasoo laga keenay dhanka suuriya lubnaan la soo gelinayay howlgalkan amniga ayaa waxaa la sheegay in markaasi looga hortegayay sawaariiqda nooca loo yaqaano grad kuwaasoo la sheegay in la qabtay 2 qof oo ka mas-uul ahayd soo tahriibinta gantaalahaasi shabakad isku xiran oo tahriibisa hubka ayayna ka tirsanaayeen waxaana la sheegay in arrintani ay ku soo aadayso xilli wada hadallo mar kale ay uga furmeen magaalada Roma ee dalka Talyaaniga wafuud ka socotay dowladda Lubnaan iyo Israa'iil halka ay ku wada hadlayaan marka tani waxay u noqonaysaa dowladda Lubnaan tallaabo ay ku muujinayso in aysan ogolayn wax huba in dalkeeda la soo geliyo oo marka ay u tagaan xisbullah marka iyaduna waxay leeyihiin dowladda Lubnaan hubkaasaan qabanay ma u ogolin marka ilaa hadda ma jiro eedeyn rasmi ah oo dowladda Lubnaan ay leedahay hubka wuxuu u socday xisbullah cadayn mayso xisbullahina kama aysan hadlin hubkan annaga lahayn uu noo socday iyo nooma socon iyo waxba iyaguna shaqo kuma laha laakiin hubkan waa la soo bandhigay sawiradiisa gantaalaha nooca ay yihiin iyo dadkii watay waa la xiray shabakad tahriibisa hubkan ay yiraahdeen marka baaritaankaas ayaa isaguna socda haddaba wararkaas ayaa ugu waaweynaa caawa barnaamijkeena habeenimo like gareeya oo share gareeya haddii alla idmo wixii akhbaarada ee soo kordha barnaamijyadayda kale ee soo socda ayaanu idinku soo gudbin doonaa inta aan mar kale kulmayno meel kastoo aad naga daawanaysaan nabadgelyo